aragtida barnaamijka iftiinshe waa barnaamij midday waqti loo baahnaa waa barnaamij wacyigelina bulshadeena waxay baahi badan u qabtaa si wax looga bedelo garaadkooda si wax looga bedelo aragtiyahooda si wax looga bedelo waxqabadkooda in lagu wacyigeliyo si waxaas dhan wax looga bedeli lahaa waxay u baahan yihiin baraarujintaasi qaab kale wax loo mari karayaan waxa weeyaan in garaadkooda la soo jeediyo wacyigelin loo sameeyo wacyigelintaas loo helana waxa samaysan barnaamijka iftiinshe waa barnaamij wacyigelina aniga aragtideeda waa barnaamij loo baahan yahay wacyigelin iyo baraarujin ah in lagu wacyigeliyo kolba halka bulshadeenu u baahan tahay in wax looga tilmaamo loogana hoga tusaaleeyo bismillaah aniga aragtideeda barnaamijka iftiinshe waxaan oran karnaa wuxuu iftiimiyay oo ina tusay waxyaabo kala duwan barnaamijka iftiinshe waxa weeyaan barnaamij ku cusub saaxadda warbaahineed ee wadankeena marka waxaan oran karaa wixii cusub caalamka jecel barnaamijka iftiinshe waxaan oran karaa aniga iyo asxaabtay la midaba uu iftiin badan buu sameeyay barnaamijka iftiinshe waa barnaamij aan runtii maalintii u bilaabmay ilaa maalinka uu ka dhamaanayay aan la socday aan xalqad daawanayay taasoo ay xalqad walba xalqadii ku xigtay ay runtii xoogii soo jeedinaysay waxa weeyaan barnaamij ku cusbaa saaxadda marka wax lagu soo bandhigo noocay doonta ha noqoto laakiin waxyaabaha u badan ee runtii ka muuqanaya ahayd wax bulshada ka dhinaa soo jiidasho badanna lahaa oo ay ka mid ahayd in dadka hadlayay ay ahaayeen dad dhalinyar u badan haddana mawduucyo kala duwan oo aad muhiim u ahaa soo jeedinayay bismillaahi raxmaani raxiim barnaamijka iftiinshe si kooban haddii aan halkiisa kelmad uga sheego waxaan ku oran karaa wuxuu yahay waxa uu ahaa nooc ka mid ah halabuurkaasoo weliba oo wadankeena ama dalkeena ama dhulka Soomaalida oo dhanba ku cusub runtii wax badan oo lagu sheegi lahaa qaadan lahaa eraya fara badan ayuu muuqaalkiisa iyo soo yar kooban loo sharaxayay barnaamij kastaaba uu maxay ahayd qaatay wax loo baahnaa buu ahaa oo ahayd mar hore in la helo aad baan runtii uga farxay dhalintii soo abaabushay iyo intii ka qayb qaadatayba waxyaabaha caynkaas oo cusub ee dadku aan hore u aqoonina waxay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo oo la garab istaago si caqliyada iyo aqoonta iyo albaxnimadaba maxay ahayd loo dhiirigeliyo oo loo horumariyo barnaamijka iftiinshe wuxuu halabuur cusub oo ahaa oo aad loogu baahnaa bismillaahi raxmaani raxiim barnaamijka iftiinshe runtii wuxuu ahaa barnaamijyadii ugu saameynta badnaayee anigu aan daawado wuxuu ahaa barnaamij curineed oo lagu curinayo oo lagu carinayo maskaxaha dhalinyar fara badan oo ay ku duugan yihiin aqoon waayo aragnimo iyo karti runtii soo shaac bixiyay dadaal iyo waayo aragnimo ay u leeyihiin inay ka hadlaan arrimo fara badan oo taabanaya nolosha iyo mowduucyo fara badan oo taabanaya arrimaha bulshada runtii markaad eegto barnaamijyada ay soo tabinayeen ama afkaaraha ay ka hadlayeen iyo markaad eegto dhalinyarta daadooda aad u kala weynaa waxay runtii ku sahlaysay inaad fahmi karto nuxurka iyo falsafada yacni curineed ee barnaamijyadii mowduucyadii ay cugteen ay doorteen oo runtii aad u baaxad weynaa aad u qiimo badnaa ee kartida ku jirtay yacni dadka soo bandhigaya waxay ahayd mid laga faa'iidayay waxyaabo fara badan oo runtii aniga si gaaran ay taabanayay dareeno fara badan runtii laga bixinayay waxa ugu muhiimsan ee aniga intaan daawanay soo jiitay waa barnaamijka oo ah barnaamij dhalinyaro oo waliba ku jiro wiilal daayar oo 13 jir ah qodobka labaad aniga soo jiitay waa mowduucyada laga hadlayay iyo waliba dadka ka hadlayay oo ah dad aad xul u ah runtii barnaamijyadu markaad eegto iftiinshe mowduucyada ay xogtaan ama ay ka hadlayeen dhalinyartu runtii may kala dhacaynin laakiin haddana waxaa jira barnaamijyo si gaar ah adiga kugu soo jiidanaya mid si gaar ah ku taabanaya runtii waxaan aad uga helay barnaamijkii hooyada
uu kaga hadlayay cabdiraxiin axmed maxamed oo ahaa wiilkii ugu daada yaraa ama ahaa wiilkii ugu kartida badnaa ugu farshaxansanaa siduu usoo bandhigayay mawduucu doortay oo runtii ahaa mawduuc isaga marka daadiisa eegta ka weyn laakiin haddana farshaxanimada iyo aqoonta iyo kartida iyo waayo-aragnimada ka muuqatay cabdiraxiin yare waxay runtii ka muuqday dadaal iyo aqoon iyo waayo-aragnimo gundheer oo uu leeyahay mawduucu ka hadlayo runtii wuxuu ka mid ahaa barnaamijyada markii aan daawanayay mawduucii iigu saamaynta badnaa mawduucii ugu xiisaha badnaa intaan daawanayay waxaanu ka mid ahaa mawduucii anugu shakhsiyan aan dad fara badan oo kale la wadaagay runtii inay ka faa'iidaystaan marka barnaamijka cabdiraxiin uu kaga hadlayay hooyadu barbaarinta ay barbaarinayso ubadku runtii wuxuu ahaa barnaamij aad aniga ii xaradhaamiyey ama aad ii taabtay oo runtii dadaalka uu geliyey cabdiraxiin laga dheehan karayay runtii in waayeelnimo iyo deganaansho iyo dadaal fara badan ay ka muuqatay cilmi baadhis fara badan ay ka muuqatay marka wuxuu ka mid ahaa mawduucyada yacnihii dhallinyartu ay cogteen mawduucii ugu saamaynta badnaa aniga ama mawduucii ugu xiisaha badnaa ee aan la kulmay intii aan daawanay iftiinsha waxyaabaha runtii barnaamijka iftiinshay soo jiitay waxaa ka mid ahaa aniga odhan kara wax badan baan ka bartay oo ah waxyaabo dhaqankii ah waxyaabo aanan yacni horeba u maqal waxaa ka mid ah inanta muuna axmed barnaamij ay soo bandhigtay oo ka sheekeynaya magacyada sida loogu bixin jiray dadkii xilliga waqtiyadii hore iyo waqtiyadan dambeba waxaan ku dhex arkay magacyo badan oo macno badanna sameynayay ood arkaysay magaca walba iyo xilliga lagu beegay inay ismicneynayeen runtii aadna ugu helan ku ceeshanaya maalintii oo dhan marka kaasoo keliya ma odhan karo laakiin midna mid kama dhicin way kala wada mid walba midka kale ka wanaagsanaa marka barnaamijkan waxyaabaha soo jiitay kale ee ku jira wax ka mid ah meesha lagu duubayay waxaan ka fikirayay dadkan malaha wadanka ma joogaan haddana wajiyada anoo garanaya ma lahayn waxay joogaan wadanka waayo meesha waxa loo dhisaan gareeyay meel qurux badan oo indhaha soo jiidanaya simbil haddana xitaa waxba ka fahmin wax badan oo fahanti ku aan ku jirin haddana meesha ay fadhiyeen oo kaliya ayaad ku indhadoogsanaysay sida loo nidaamiyay iyagoo dhalinyara oo ay laga yaabaa inay qaar badan oo kamid ah ay ku cusbayd haddana markaad eegto siday u fadhiyeen sida u nidaamsanaayeen sida u soo jeedinayeen anigii bay ku dhiirigelisay inaan isku dayo balnan wax ka odhan karo bulshada wax u sheegi karo barnaamijka guud ahaan sida aan sheegay waxa weeyaan barnaamij cusub oo aad wanaagsan buu ahaa wax badanna waan ka faa'iiday xalqadaha ama qaybaha go'an qayb kastaaba faa'iidada gaarka ah bay lahayd laakiin haddii su'aasha ay tahay maxaa si gaar ah adiga ku saameeyay ama ku soo jiitay Soomaali ahaan markaynu nahay waxaan ugu adag waxyaabaha ay ka mid yihiin raaligelinta mahadnaqa iyo waxa la midka barnaamijkii ama xalqadii ay hibaaq soo jeedisay runtii barnaamijkaas aad buu qurux badnaa aad buu wanaagsanaa melihin dhaqankaas iyo dabeecadda ay Soomaali ahaan markaynu nahay inaynu qof wax ku qabtay kuna raale mahadnaqno qaybta hibaaq soo jeedisay ah raaligelinta ahaa ee qofku inuu khaladkiisa qaato amaba inuu waxyaabaha yar ka dhaca qofka ku raaligeliyo melihin oo ma hada dabeecadiina ma aha qaybtaas aniga aad bay ii taabatay aad baan ii soo jeedtay runtii aad baan ugu helay in dadkeenu ay bartaan oo ay ku dhiiradaan oo ay sameeyaanna waa arrin wanaagsan oo tanba imka la oran karo waxa ka mid tahay waxyaabaha ugu horeeya ee calashan dadku ay saameyn karto ama qalbigooda geli karaya ama ka mid ah siyaabaha qofka dadka loo tusi karo in raaligelintu macnaha ay leedahay iyo faa'iido ay leedahay waxyaabaha sida gaarka ay soo jiitay waxa ka mid ah qaabduubka barnaamijka waqtiga oo laga faa'iideeyay waqtiga oo la geliyay hadal yar oo macno badan xambaarsan dadka ka qayb qaatay barnaamijka oo ah dhalinyar isla mar ahaantaana ah dad aan oran karno waa kariimka bulshada amba dhalinyarta soo kacaysa aragtida talahaan waxaan ku kordhin lahaa hadda waxa daawan kara barnaamijkan muuqaalada cidda awoodda u leh inay adeegsadaan baraha bulshada ee muuqaalada laga daawado ama lagala dego sida barta YouTube-ka inta adeegsata waxa ka badan marka dadkeen eegto inta aan adeegsan si uu u noqdo mid ku baxa mid dadku ay wada daawadaan ummadeenana wada gaadha waxaan ku talin lahaa inuu ka baxo muuqbaahiyaasha dalka gudo iyo dibadba waxa kale oo ku talin lahaa inuu noqdo barnaamij la dareemo isbedelka uu abuurayo dadka dambe lagu casuumi doonaana ha noqdaan kuwo wakiilo ka ah inay wax bedeli karaan horumarin karaan kaabi karaan garaadka iyo maskaxda bulshadeena
mid yar iyo mid weynba. waxaan soo jeedin lahaa inaan joogtayno barnaamijyada noocan oo kale ah maadaama aynu nahay bulsho aad ugu baahan amba aad ugu haraadan wacyigelin. waxaan barnaamijkan oo kale iftiinsho uga faa'iideysan karnaa ciribtirka qabyaaladda, tahriibta iyo in bulshada lagu wacyigeliyo sida ay u wada shaqayn lahaayeen. wax in la bilaabo ama la isku dayo ama la curiyaa waa wax mar kastaba la sameeyo lana samayn karayo. meeshii muhiimka ah ama lagu kala baxo guusha iyo guuldarrada ku kala baxaan waxa weeye wixii in la joogteeyo. barnaamijka iftiinsho in la joogteeyo oo aan bartaa lagaga hadhin oo noqdo wax maxay joogta oo soconaya mar kasta oo kolba meel lagu saaro maxay muhiimadda xooga lagu saaro ayaan soo jeedin lahaa kow. waxaan soo jeedin lahaa in ma taqaanaa la ballaadhiyo intuu imanka uu yahay kastoo curdin yahay oo cusub yahay haddana in la ballaadhiyo oo intii suuragal ah la socodsiin kara ama intii suuragal ah la gaarsiin karayo haday masaafo noqoto iyo haddii noqotaba in maxay la gaarsiiyo la wado dhammaan meelaha dadka loo marin karayo loo gaarsiin karayo maxay ahaydey inay ka daawadaan iyaga loo sii maryaabaan maxay ahayd soo jeedin lahaa. hawsha haday bilaabantay sida qoriga loo qaatay ha ku socoto oo hubka yar la dhigan baan leeyahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku talin lahaa barnaamijka runtii in waqtiga la siiyey barnaamijka in laga yar kordhin kari lahaa oo matalo kale halkii uu 9 ama 10 daqiiqo ka 15 daqiiqo laga dhigi lahaa. waxyaabaha kale aan ku talin lahaa waxaa ka mid ah mawduucyada la qaadanayo runtii in si mawduucyo israacsan oo arrimaha bulshada u badan runtii in xoog la saaro oo loo badiyo. waxaa kaloo ku talin lahaa runtii barnaamijka in la joogteeyo loogana faa'iideeyo dad fara badan maadaama wacyigelin iyo uu ka hadlayay aqoon iyo waayo-aragnimo runtii aad u dheer cid kasta oo lala wadaagi karana lala wadaago ama la gaadhsiiyo maadaama maanta waxyaabaha ugu badan ee la baahiyo ama muuqaalka ay ka saameyn badan yihiin waxyaabo badan oo kale qoraalka iyo akhriska. waxaan ku talin lahaa in dad fara badan oo waayeel iyo dhalin bay iskugu jirto runtii la gaadhsiiyo barnaamijka in runtii loo sameeyo madalo fara badan oo kale lagu soo bandhigo waxqabadkiisii iyo saameyntiisii iyo laftigeeda waan ku talin lahaa. runtii barnaamij aad u saameyn badan oo aad u xiiso badan oo noociisa aan hore uga dhicin yani Jamhuuriyadda Soomaaliland buu ahaa. barnaamij runtii anaga aad noo soo jiitay barnaamij aad runtii aan ugu xidhnayn oo sugi jirnay markasta oo marka cid kasta oo taageertay ama ka qayb qaadatay runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa waan ku dhiirigelinaynaa inay joogteeyaan. waxaan aad ugu mahadnaqaynaa waqtiga iyo dadaalka iyo kartida ay geliyeen inay barnaamijkan suurto geliyaan inuu qabsoomo. waa mahadsantiin.